madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta magaalada Hargeysa ku qaabilay wafdiga socda dowladda dalka China una qaabilsan dowladdaasi iskaashiga Afrika iyo China Forum on China Africa Cooperation Ambassador Zhu iyo waliba oo muddo 3 maalmood booqasho ku yimid magaalada Hargeysa. Ugu horeyn madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu wafdiga warbixin uu guud ka siiyay horumarka ka hana qaaday Somaliland ay iska kaashadeen shacbigeeda iyo dowladda sida madaxweynuhu yiri kaasoo sababay beesha caalamku in la raacdo kuna dhiiradaan inay maalgashada isla markaana kheyraadka dalka ku sugan ay wax ka soo saaraan. waxaana madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi xafdigan oo sheegay in dalkiisu tusaale u yahay Geeska Afrika marka loo eego horumarka dhinaca dimuqraadiyadda oo ku talaabsaday 19 sano ugu dambeeyay isbedelada dhinacyada badan leh ee ka hirgalay Somaliland tahayna dhinacyada doorashooyinka hanaanka asxaabta xisbiyada qaran waliba nidaamka qoriisu dhiibka ee hoggaanka dalka. dhinaca kale wafdigan waxay madaxweynaha kala hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka dhinacyada ganacsiga iskaashiga bulshada ee labada dal ay yeesheen muddada dheer. ugu dambeyntiina wafdiga dowladda China madaxweynaha maamulka Somaliland waxay isla garteen in laga shaqeeyo xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya Somaliland iyo China in hore loo sii horumariyo dhinacyada dhaqaalaha ganacsiga iyo waliba horumarka oo labada dhinac iska kaashan doonaan. waxaana kulankaasi madaxweynaha ku weeriyay madaxweyne ku-xigeenkiisa wasiirada arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga horumarinta maaliyadda macdanta iyo tamarta wasiir ku-xigeenada arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga waliba wakiilka Somaliland u qaabilsan jamhuuriyadda Shiinaha.